وحاكوس جريا مركي بدر أوي مادنا أو بيشنا مال أو سنوس أرنين مركي بدر أوي مادنا إن قفش الشاي أو دوش أنا لو كانوا أو بدر لغوسيو وحاكوس جريا مدحوينا ما أسمع مدحوينا قطعي ما ملك مية ساستهي ما حق با ما حق إلهي با ما تاس با يسكون رأسنتي ما إلهي ما لقى بقى مية أبشر وحا إذن لا يا مدحوينا وحا كاحسنا حقين هنا بنانك لو كنتي قدام يا دق ماذا وابري إمام الكيسة ما في إحنا halkan waa garka degmada Waabari ee gobolka Banaadir kuwanina waa qaar kamid ah hooyooyinka ka shaqeeya wadooyinka kala duwan ee ay leedahay degmadan gabi ahaantood waxa ay ka siman yihiin cabasho ay ka qabaan maamulka degmada waxayna tilmaameen in muddo ku siman 12 bilood aysan helin xuquuqdii ay lahaayeen raashinkii loogu talagalay bisha barakeysan ee Ramadaana loo weeciyay meel kale qaar kamid ah dadkan oo la hadlay TV-ga codka bariga Afrika ayaa waxa ay tilmaameen in aan la siinin waxyaabaha ay xuquuqda u lahaayeen sidoo kalena waxa ay sheegaan in dhibaato badan ay ku qabaan maamulka degmada waa Sahra Maxamed Xuseen ku magac dheer Sahra Shabeelow anigoo ah urur haweenkii degmada Waabari in la adeegsanayo maamadayna maama Iisho in la adeegsanayo ugu faanay qabiil ay degmada isku bedeshay Axmed Faalso u baxay laakiin inta saharan ku soo joogna anaga haweenan magaalada soo nadiifinaa oo waxa jir banaan baxa jir waa aasna ka qayb galnaa oo inta jir dib waana la waxa dheef doo yimaadana daayniile bakaaro wala adduunyo madiina aad dad laga keensana annagi haween dhibaataysan nafteeda hurtay dalkeeda iyo dadkeeda daaficaysaana hiil iyo hawa diyaaran una annaga gobolka Banaadir waxaan ka codsanaa maanta raashin la keenay waxaana la yiri raashinkan masaakiin aan la siina wax masaakiin la siiyayna maahan afar jaab la aan nolosha ku kala qaybsaday nolosha lagu kala gatay maanta warihi noo yimid waxa dhacday in la daqro maamulka degmada Waabari inuu daqar u geesto taas ayaa dhacday maanta annaga haween dhibaataysanaanahay heel iyo hoobo degmadayna inaan tiirkeeda ahaano oon daafacno diyaar ayaa u nahay laakiin maamulka degmada joogo nama aqoonsan urur haween ma jiro dhahan urur haween wax la yiraahdo ma jiro mana naqaano waxa qaadanin urur haween qaadanin annaka nalama aqoonsano maamulka gobolka waxaan ka codsanaynaa urur haween حق ملايا مس حق ملهن urur haween حق ملايا مس ملهن madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Umar finish waxaan ka codsanaynaa degmada dhibaatada nagu hayso aan u dhalanay xaafadeena degmadeena aan u dhalanay sila nagu haysto oo dad ajnabi inta la keeno oo cad qurqurux badan inay raashin kortaan ku jijitaan annagana waa dhibaataysanahay qaraar iyo maalin aan soo jeednaa haween 9 saacan ka imaana gobolka nolowada oo madaxtooyadan tagnaa oo meel kasta tagnaa wax la siina ma nafteena uurnay meelkeena uurnay nolosheena uurnay maamulka gobolka waxaan ka codsanaynaa si dhaqsi leh arintan inay ugu soo jawaabto arintan inay si dhaqsi leh ugu soo jawaabto arabna arintan si dhaqsi leh inay ugu soo jawaabto waraxmatullaahi wabarakaatuh بسم الله الرحمن الرحيم waxaan u sheegaynaa gadoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxweynaha waxaan u sheegaynaa in Cali Baasha saxariir nageli oo gadoomiyaha gobolka ilaa hadda aan shaqeyno malaamilay aanahay oo waxba nasiino inuu wax kasta noo diiday gadoomiyaha Cabdi Casiis gadoomiyaha degmada magaciis oo waxba noo diiday oo na raacday oo kala goos buusha ka keenstay buushaha oo siiyay waxa ka kaarar ana kana kaararka haysani ana ko halahan shaqeeyay waxaan shaqeeyay Axmed Faal gadoomiyaha kale oo xabaadla ay ilaa haddaan shaqeynayna waxna ma noo hayninkaas shilin kaar ma niisiinayo wax noo taraysa man xoo bay shariifa ku aniga magacayga shaacinaynin waxa maxaa la asaga ogeysiinaa gadoomiyaha gobolka maxaa la asaga maama Jawaahir madaxweynaha ilaahay disku rooyahay wixii maxaa la asaga madax
inaad degmadaaneed 12 bilood laga shaqeeyo maalinta raashin imaadane oon dadaan ka seenin oo waliga ayna degmada ku arkin ay raashinka dusha ayna ku daldashtaan waa ka xunaa aniga waxaan ka tirsanahay ururka haweenka maami iisha waxaa la siiyay 25 kaar oo maxaa la asaga aan deeqin dadkeedana 80 qof waaye waa iska celisay ma kasta intii kala goosa lagu gashtay meeshaaneeto ninka albaashi la dhahayo wiilashiisa iyo ilmo yar oo soo dhiibaa anaga gadoomiyahayna Axmed Faal markuu degmadan ka tagay dadkii oo dhan halka sano raashinka la qaadanayo waa la waayay ma kasta 12 bilood waxa lagu shaqeynayaa maxaa la asaga xiskaa waxa qabso subaxdii la soo kalaha ilmiya laga soo tagaa laamiyaasha la haqa meeshii qashin ku jira lagu geynaa waa soo nadiifinaysaa halka sano oo soonka oo maxaa la asaga oo imaad raashinkana dad aan waligayna arkin iyo raashinka daldalanay oo meel kasta laga keenay waxaan anaga ku codsanaynaa gadoomiyaha gobolka waxaan ka codsanaynaa haddii aan nahay shaqaalaha degmada waa bari oo mushaarna qaadanin si dhaqso inuu maxaa la afurkiina la sii jiri oo noola sii nin kun shilin qaatay male maxaa la kaararkii dhan kala goos aa loo wada dhiibay gadoomiyaha Axmed Faal wax naaga roon waa waynay ma kasti gadoomiyaha Axmed Faal wax naaga roon waa waynay waxaan ka soo hadlayaa degmada waa bari si gaar ahaan xaafadda hanti wadaag waxaan leeyahay mudana madaxweyne waxaan leeyahay mudana ra'iisul wasaare waxaan leeyahay xogeeye waxaan leeyahay xubnaha sarsare waxaan leeyahay maamo Jawaahir sidoo kale basmati waxaan leeyahay maamulka oo dhan oo maxay ahayd dawladda waxaan ka codsanaynaa xaqeena in la soo dhiciyo because waxaan aragnay dhiigeena iyo dhacaankeena wuxuu ku baxayaa dhulka wuxuu ku dhamaanayaa dhulka dhiigeena dhulku ku dhamaaday dhididkeena waa dhamaaday xaqeena cid noo soo dhicisa male waqti walba waaxda marka la keeno gadoomiyo wax walba ayada danaysato cid noo danaysa male bari saadambo dadka hadda la keeno badarka la siinayna waa bari ma aha ma fahamtay dadka hadda la keeno oo badarka la siinay waa bari ma aha waxaa laga keenay ex control waxaa laga keenay sayidka waxaa laga keenay sidii xamar jajab oo kale waxaa laga keenay busley sida u taqaanid maxay ku dhacday annagana 9 saac ilaa 8 saac habeenimo inaan socono mudana madaxweyne inaan heegan ku ahaano meel kasta aad noo dirtid inaan aadno aan ku tagno maxay ahayd meesha nagu amartiina aan tagno oo 9 saac ciyaalkeena aan ka dhaqaajino raggeena aan ka tagno waxaa koos gareeya markii badar u yimaadana oo bishina meel oo noo saarneen markii badar u yimaadana in qof shisheeya oo dusheena lagu keeno oo badar lagu siiyo waxaa koos gareeya madaxweyne noocaas miyaad madaxweyne ku tahay maamulka miyay saas tahay ما حقبا ما حق إلهي ما تاسبا يسكن راعسنتي ما إلهي ما لقى بقى ميا أبشر وحا إذن لا يا مدحوين وحا كاحسنا هنا حقين هنا بنانك لو كنتي قدام يا دقمنا وبري إمام الكيسة ما فيحنا halkan sidoo kale maanta waxa ay dhibaato ku soo gaadhay qaar kamid ah wariyaasha ka howlgala warbaahinta Muqdisho waxaana dhibka sida qaar kamid ah hooyooyinkana ay sheegeen u geystay xubno ka tirsan maamulka degmada Waabari ee gobolka Banaadir si kastaba ha ahaatee shacabka ku nool magaalada Muqdisho ee halkan kula kulannay gaar ahaan hooyooyinkan ayaa baaq cod dheer waxa ay u dirayaan madaxda ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya iyagoo codsanaya inay helaan xuquuqdii ay lahaayeen maanta wariyihi noo yimid waxaa dhacday in la daqro maamulka degmada waa bari inuu daqar u geysto taas ayaa dhacday maanta annaga haween dhibaataysanaanahay hiil iyo hoobo degmadayna inaan tiirkeeda ahaano oon daafacno diyaar ayaa u nahay laakiinse maamulka degmada joogo nama aqoonsan urur haween ma jiro dhehen urur haween wax la yidhaha ma jiro mana naqaano waxa qaadanin urur haween qaadanin annaka nalama aqoonsano maamulka gobolka waxaan ka codsanaynaa urur haween xaq ma leeyahay mise xaq ma lahan urur haween xaq ma leeyahay mise ma lahan madaxweynaha maxamed cabdullaahi faramaajo cumar finish waxaan ka codsanaynaa degmada dhibaatada nagu hayso aan u dhalanay xaafadayna degmadayna aan u dhalanay silaca nagu haysto oo dad
ajinada inta la keeno oo cad oo qurqurux badan inay raashin kortaan ku jijitaan annagana waa dhibaataysanahay qaraar iyo maalin aan soo jeednaa haween 9 saacan ka imaana gobolka nolowada oo madaxtooyadan tagnaa oo meel kastaan tagnaa wax la siina ma nafteena uurnay meelkeena uurnay nolosheena uurnay maamulka gobolka waxaan ku codsaynaa si dhaqsi leh arrintan inay ugu soo jawaabdo arrintan inay si dhaqsi leh ugu soo jawaabto arabna arrintan si dhaqsi leh inay ugu soo jawaabto wa rahmatullahi wa barakaatuh